بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا وناكسنا خيارتنا داواتاي halkani waa Foos Somali TV waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee gobol qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maxkamadda ciidamada oo dil toogasho ku fulisay ninkii horey u dilay wasiir Siraaji oo ka tirsanaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sanadkii 2017 maxaa looga hadlay kulankii dhex maray madaxda baarlamaanada Luxembourg iyo Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo gaaray magaalada Maxaas qodobo Soomaaliya u daneynaya oo laga soo saaray shirkii wasiirada cadaaladda ee dalalka jaamacadda Carabta ku bahoobay shirweynaha booliska adduunka oo lagaga hadlay dambiye la xiriira arrimaha lacagta adduunka midowga Afrika oo isniinta u ballansan furitaanka wada hadallada nabadeed ee la dhex dhiga ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigray iyo dowladda Chad oo soo rogtay bandow kadib markii konton qof lagu dilay rabshado ka dhacay dalkaasi Chad qodobadan iyo qodobadii soo raaca ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan wararkeena ee u diyaar garoobay iyagoo dhammaystiran وهجاج والله 22 bisha tobnaad sanadka 2022 warkii oo fidsan aynu ku bilowna ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay dil toogasho ah ku fulisay Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo hore u dilay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee xukuumadda Xasan Cali Khayre Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji May 3 2017 ayaa maanta oo kale lagu fuliyay xukun dilka ahaa oo hore ay ugu xukumeen heerarka maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunkaasi oo uu eedeysanuhu racfaan ka qaatay ayaa waxaan u suurtagelin in dilkaasi laga khafiifiyo si maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay toogatay Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid toogashadan ayaa ka dhacday dugsiga tababarka General Gordon ee magaalada Muqdisho waagaag daawadayaal wali waxa daawanaysaan wararka Foos Somali TV gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa la kulmay dhigiisa dalka Luxembourg mudane Ferdinand Eaton mas'uuliyiinta ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada baarlamaan iyo sidii looga kala faa'iideysan lahaa tababarada xildhibaanada iyo shaqaalaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa baarlamaanka Luxembourg iyo dhigiisa uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay isaga iyo waftigiisa gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhankiisa xoojinayo xiriirka uu la leeyahay baarlamaanada caalamka isagoo ballan qaaday inay si gaar ah ula shaqeyn doonaan baarlamaanka dalkaasi Luxembourg oo ka tirsan dalalkaasi ku yaala qaaradda Yurub markana aynu eegno madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan safar dhulka ah ayay uga aanbaxeen magaalada Beledweyne waxaana madaxweyne ku-xigeenka uu gundhig u noqon doonaa howlgal ballaaran oo lagu xoreyn doono magaalooyinka Wabxo iyo Ceelbuur oo ka tirsan gobolka Galgaduud socdaalka madaxweyne ku-xigeenka waxa ku wehelanaya xildhibaan Jacfar oo ka tirsan baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo uu hogaaminayay oo doonaya inay dhawaan qabsadaan Wabxo ilaa iyo Ceelbuur howlgallada military iyo dadka deegaanka ay abaabulay ayaa maalmahan waxa ay howlgal ka wada gobolada Hiiraan iyo Galgaduud wagaag kala fadhigiisa duniya sideedaad ee wasiirada arrimaha cadaaladda ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Ifran ee dalka boqortooyada Morocco wasiirada cadaaladda ururka jaamacadda Carabta ayaa soo saaray qaraaro muhiim ah kuna saabsan la dagaalanka ururka al-shabaab iyo horumarinta cadaaladda wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Xasan Macalin Maxamuud oo shirka ka qayb galay ayaa go'aanada la isla qaatay ku tilmaamay kuwa ku soo aaday waqtigii loo baahnaa wasiirku waxa uu sii tibaaxay dawladaha ku bahoobay ururka jaamacadda Carabta inay iska kaashan doonaan dhismaha hay'adaha iyo shuruucda muhiimka u ah la dagaalanka ururka al-shabaab iyo ururada argagixisada ah iyo dambiyada abaabulan kuwaas oo Soomaaliya ka caawin doona talaabooyinka lagaga hortagayo dambiyada isaga talaabo wadamada iyo qaaradaha halka diga daawanaysaan waa Foos Somali TV iyo markan Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirweynaha hay'adda booliska adduunka ee Interpol wasiirka amniga gudaha mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali oo uu helinayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asarreeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo wafti kale oo ka kooban saraakiil sarsare oo ka socda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa magaalada New Delhi ee dalkaas Hindiya kaga qayb galay meertada 9aad ee shirweynaha booliska adduunka ee Interpol shirka oo ay ka soo qayb galayaan madaxda ka kala socota in ka badan 165 dal ayaa wuxuu socon doonaa inta u dhaxaysa 18 bisha tobnaad ilaa 25 bisha tobnaada shirka inta uu socdo ayaa waxa looga hadli doonaa ka hortagga dambiyada maaliyadeed ee caalamiga ah wax ka qabashada burcadda internetka la dagaalanka argagixisada ka hortagga dambiyada xuduudaha isaga gudba daroogada iyo lacagaha sharci darrada ah kuwaas oo dhammaan kamid ah khataraha uu wajahayo guud ahaan amniga caalamka midowga Afrika waxa ay sheegeen in isniinta inay u ballansan yihiin wada hadallada nabadeed ee lagu xalinayo dadaalada ka socda dalka Itoobiya
kuwaasi oo ka furmi doona maalinka Isniinta dalkaas Koonfur Afrika kadib ballanqaadyo ay sameeyeen dowladda Itoobiya iyo mas'uuliyiinta Tigrayga oo sheegay inay ka qayb galayaan kulankaasi. dowladda Itoobiya iyo xulufadeeda oo ay ku jiraan ciidamada militariga Eritrea ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2020 kula dagaalamayay kooxda TPLF waqooyiga dalka Itoobiya. Dagaaladan oo ay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qofna ay ku dhaawacmeen, halka boqolaal kun oo kalena ay qarka u saaran yihiin inay soo foosarto macaluul baahsani. Golaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika ayaa sheegay Jimcihii inay soo dhaweynayaan ballanqaadyadii labada dhinac ee ahaa in si dhab ah looga wada qayb qaato geedi socodka nabadda. Redwood Hussein oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladdu ay ka qayb gali doonto wadahadallada uu hogaaminayo Midowga Afrika oo dhacaya 24 bishan Oktoobar. Gebrahay oo ah afhayeenka ciidamada Tigrayga ayaa isaguna isla markiiba ka jawaabin arrintan. Wadahadallada nabadeed ayaa lagu wadaa inay bilaaban doonaan maalmo un kadib markii ciidamada Itoobiya iyo xulufadooda ay la wareegeen 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala gudaha gobolka Tigrayga. Tigray TV oo ah warbaahin uu gacanta ku hayo maamulka Tigrayga ayaa sheegay Jimcihii in ciidamada Tigraygu ay sii daayeen in ka badan 9,000 oo maxaabiis kuwaas oo ay ku qabteen dagaalo ay la galeen Eritrea iyo Itoobiya. Waxay sheegeen dadkan maxaabiista ay sii daayeen 500 oo kamid ah inay ahaayeen haween. Wakaaladda wararka oo isku dayday in ay soo gudbiso xogta dadkan maxaabiista ah ee Tigraygu ay sheegeen inay sii daayeen ayaan helin faahfaahinad dheeraad ah oo la xiriira maxaabiistaasi iyo sii deyntooda. Weli waxaad dhagta ku haysaan waa Fox Somali TV. Daawadayaal, dowladda Jaad ayaa sheegtay in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada ammaanku ay rasaas ku fureen dibadbaxayaal dalbanayay in la soo afjaro xukunka militariga. Dowladdu waxay mudaharaadka ku tilmaantay inuu ahaa kacdoon hubeysan. Dowladda ku meel gaarka ah ee Jaad ayaa bandow soconaya 6 fiidnimo ilaa subaxnimadii ku soo rogtay caasimadda dalkaasi ee Jamena iyo 3 magaalo oo kale iyada oo isku dayeysay inay xakamayso qalalaasaha ka jira dalkaasi. Dibadbaxayaasha ayaa Khamiistii isugu soo baxay wadooyinka iyaga oo dalbanayay in la soo afjaro xilliga xilhaynta ee xukuumadda haatan dalkaasi ka jirta, taasoo muddada xilhaynteedu ku darsatay 2 sano oo kale oo dheeraad ah. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiro badan. Ra'iisul wasaare Saalax Kabzabo ayaa ku eedeeyay dadka dhigayay mudaharaadkaasi ama dibadbaxaasi inay mas'uul ka ahaayeen dhimashada dadka halkaas ku dhintay. Wuxuuna mamnuucay isu imaantika dadweynaha. Wuxuu sheegay in dowladda ku meel gaarka ah ee uu hogaaminayo iyadoo ka jawaabaysa falalkii foosha xumaa ee dhacay inuu qaaday talaabooyin ay ka mid yihiin inuu soo rogay bandow ilaa iyo inta si buuxda dib loogu soo celinayo kala dambeynta iyo shuruucda dalkaas. Bandowga ayaa ka dhaqan galaya magaalada Jamena iyo magaalooyin kale. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in la hakiyay dhammaan kulamadii dadweynaha oo ay ku jiraan kuwa xisbiyada iyo ururada bulshada. Louis Madig oo ah agaasimaha bartamaha Afrika ee Human Rights Watch ayaa sheegay in loo baahan yahay baaritaan lagu sameeyo sababaha keenay dhimashada dibadbaxayaasha. Qodobkan ayaa u dambeeyay wararkii Fox Somali TV. intaan warar caynkan oo kale ah daawadayaal dib ugu kulmi doono. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. wararkeena u shargaraya saaxiibadiina kale idinkoo isugu diraya baraha bulshada. Nabadgelyo.